علي جيت عثمان قدوميها قبل كهيران هذا على سوديشان صدق كنا دولار بس كوكو سينا مدحوينه وكعفينيا وixii kale aad ka sii heli kartana ka sii hel labaha hor u qaadno waxa uu maanta lacaga dul dhigay madaxa hogaamiyaasha al-shabaab isagoo oo dhalinyarada u dagaalamaysa al-shabaab ugu baaqay in qofkii soo dilo hogaamiye sare oo shabaab sida Cali Dheere iyo Mahad Karatay inuu siin doono lacag $30,000 imid shabaab soo dila asaguna shabaab الشباب كلا سودله الصقلة العقل نسينين أما أنت وين كلا صقص كيو أروح أنا شنكم ما بحلنا سوما طبعا كنا دولار بحلنا مليشي شباب مليشي كلا شباب دو سودله وكصقلة هذو كون أرجده يجا ضح سدا هبلكا داري هبلكا كرساي هبلكا هدو سود لنا ما بلهلي كربا لعتها أنا هدو دي من أقول الأسدح الجباري نانو كوا الشباب كا ويلسا يرير الصوماليين يجود عاديستي إني بنايستان بروفيت كل راديان ورا كوا دي على لسان سود له العقبان نسيننا عفس لواتيني مدحولي جمهورية دايدين بلغ هذا عفسك أنا لعقتي أنا بحنايا maxaa idinka halaabaya yaa adduunka meesha doontaan waa tagaysaan hadaa caleero soo dishaan $30,000 bas kugu siina madaxweynuhu waa ku cafinaya wixii kale aad ka sii heli kartana ka sii hel labaha hor u qaadno ballan way hadaa soo dishaan adinkoo shabaab kale hadaa soo dishaan waxaan saaka ku hadlay inaan fulinay ballan dhinaca shabaabkana intaasaan leeyahay waxaan filayaa inaynaan ugu tagin maanta eeriyadii tagtaan inaynaan ugu tagin aan filayaa sababtoo waa aqaanaa dhuumaaleysigooda iyo qarmoonkooda marka aad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhowr bilood ka hor gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa macaawisleyda deegaanka ugu baaqay in ay soo dilaan hogaamiyaasha al-shabaab isagoo sheegay in qofkii soo dilo xubin shabaab inuu heli doono lacag $5,000 ballan qaadkaas oo horey u fuliyay gudoomiyaha Cali Jeyte